guddoomiyihii hore ee maamulka gobolka Banaadir Abdiraxmaan Cumar Cusmaan Yiriisow ayaa u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qarax ka dhacay xarunta dawladda hoose ee maamulka gobolka Banaadir. Shaki badan ayaa laga muujiyay qaabka uu dhacay qaraxa maadaama xarunta dawladda hoose ee gobolka Banaadir ay ka mid tahay goobaha ugu ilaalinta badan xarumaha hay'adaha dawladda ay ku shaqeeyaan. Dadka weerarka ku dhintay waxaa ka mid ahaa guddoomiyihii degmada Cabdilcasiis Sabax Cabdullaahi Asad, guddoomiyihii degmada Waabari Mahad Cilmi, guddoomiyihii degmada Shangaani Sahre Sheekh Maxamed, agaasimihii nadaafadda maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Umar Xalane, agaasimihii shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir Cabdullaahi Dheere, la taliye dhanka sharciga Xasan Sabriye. Sida ay qabaan siyaasiyiin hore iyo saraakiil dhanka ammaanka qaabilsanaa, madaxda dawladda Soomaaliya ayaa dayacay amniga guddoomiyihii hore ee maamulka gobolka Banaadir Abdiraxmaan Yiriisow. Generaal Xasan Maxamed Xuseen Mungab, guddoomiyihii hore ee maamulka gobolka Banaadir, ayaa shaki ka muujiyay qaraxii lagu dhaawacay guddoomiye Yiriisow oo sababay inuu u geeriyoodo iyo natiijada baarista hay'adaha ammaanka. Waxa uu sheegay in Yiriisow uu ahaa guddoomiye gobol oo loo diiday inuu wax kaalin u ku yeeshto nabadgelyada gobolka Banaadir uu guddoomiyaha uu ka ahaa, iyadoo waliba ilaaladiisa aysan ka amar qaadan jirin, taasina ay sababtay in si fudud loo shirqoolo. Generaal Galaal oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee dawladda oo la hadlay idaacadda Simba ayaa sheegay in amniga guddoomiyihii dhintay la dayacay, isla markaana madaxda dawladda aysan xilligan diyaar u ahayn inay ilaaliyaan amniga midka cusub ee soo socda. Dhanka kale waxaa socda loolan ku aadan qofkii bedeli lahaa booska uu ka geeriyooday guddoomiyihii maamulka gobolka Banaadir Abdiraxmaan Yiriisow, waxaana xilkaas haatan ugu cadcad xubno dawladda Soomaaliya ka tirsan iyo saaxiibo ku dhow madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo magacaabista guddoomiyaha maamulka gobolka Banaadir leh. Hay'adaha ammaanka dawladda federaalka Soomaaliya ayaa wax natiijaha ka soo saarin weerarkii xarunta dawladda hoose ee maamulka gobolka Banaadir, waana su'aal kale oo isweydiin mudan oo shaki badan abuurtay.